muqdisho muddooyinkii dambe waxaa ku soo badanayay degmooyinka sida weyn isugu diyaarinaya martigelinta dalxiisayaasha Soomaalida ee ka kala yimaada gobollada dalka iyo dalalka dibadda si waqti fiican nasiino iyo dalxiis bay ugu qaataan goobaha degmooyinka qaar ay u diyaariyeen dadka dalxiiska. degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa ka mid ah degmooyinka sida weyn ugu muuqda xilliyadan ee qaabila mas'uuliyiin iyo shacab wada damaashaadaya, waxaana taasi ay muujinaysaa in maamulka degmada uu xoog saarayo sidii degmada looga horumarin lahaa adeegyada dalxiiska. Maxamed Abuukar Jacfar, gudoomiyaha degmada Daynile, ayaa dhalinyaro iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda oo u dalxiis tagay degmadaasi kula hadlay xarunta degmada. waxa uu sheegay in degmadu ay leedahay qaybo kala duwan oo loo diyaariyay dadka dalxiiska. maanta waxaa joogtiin degmadiina gobolka Banaadir oo dhan waa degmooyinka ku yaal waa degmooyinkiin tan kaliya ma aha, meel kasta waa la wada degan yahay, waa la wada joogaa. dhalinyaraduna saan oo kale maartu u dhafnaato isula shaqayso oo waxa aad u fiican. waan idinka mahad celinaa dadaalka awoodiin, annaguna dadaalkaas qiyaama ka noqon doona haddii Ilaahay yiraahdo. waan ku mahadsantihiin. galabtana insha Allah waa la soo wareejinaa meesha rabtiin, Daynile qaybta ka rabtiin, dad beeraha rabtiin, dad meelihii dalxiiska rabtiin. inta waa soo mar doona haddii Ilaahay yiraahdo. wax dhibana insha Allah kala kulmaysiin haddii Alla idmo ilaa 5 saac 6 saac oo gaari kartiin. qaar ka mid ah dhalinyarada socdaalka ku tagay qaybta beeraha ee degmada oo ay ka baxaan qudaarta noocyadeeda kala duwan, gaar ahaanna muuska, ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay dadaalka maamulku uu geliyay dalxiiska. dhalinyaradii magaalada ugu horeysay ama labeyntii magaalada Muqdisho ahayd ayaa waxay maanta isugu imaatay beertan quruxda badan ee u jeedaan. waxaa safarka qayb ka ah dad sarsare oo xubno ka ah golaha fulinta ama wasiirada, sidoo kale xildhibaano, sidoo kale dhalinyaradii ka shaqeynaysa guud ahaan shirkadaha iyo hay'adaha kala duwan ee magaalada Muqdisho ku yaalo. waxaan u mahad celinayaa gudoomiye Jacfar oo la'aantiisa aan waxba noo qabsoomi lahayn. markii aan u sheegnay in team dhalinyaraha ay degmada u soo socdaan yiri maxaa la yiraahdaa waxaan u fidiyay gogol iyo qado. wuu ku mahadsan yahay gudoomiye. waxaan leenahay annaga iyo intii naga horeysay inta naga dambeysay aad casuumaad u fidin doontaba waxaan leenahay waxaa tahaliyay waxayna la geeyay ilaa iyo dhowr goobood oo kala duwan sida beeraha Daynile geeskeeda ku yaalo, sida aeroboorka, sida maxaa la yiraahdaa dhul doog la qurux badan. wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay lafdhabar u tahay kobcinta adeegyada dalxiiska dalka, waxaana mar walba ay hormuud u tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed la dareensiiyo in dalkoodu uu leeyahay goobo badan oo dalxiiska ah. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska Xildhibaan Aadan Isaaq waxa uu sheegay in wasaaraddu ay dhiirigelinayso isla markaana horumarinayso adeegyada dalxiiska dalka. ka wasaarad ahaan wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska waxa waajib inaga saaran horumarinta barnaamijka qayb qaadashada horumarinta barnaamijka dalxiiska. waxaad aragtaan gadaashayda taagan dhalinyarada reer Muqdisho oo maanta u soo damaashaad tagay degmada Daynile. waxaan halkan u joognaa dhiirigelin iyo reynreyn iyo